maamulka dawladda hoose magaalada Berbera ayaa maanta olole nadaafadeed ka fuliyay deegaanka Laasada Cawo ilaa iyo 70 kiiloomitir in ku dhow dhinaca koonfurka ka toosan magaalada Berbera. hawlgalkaasi ololaha nadaafadeed ay dawladda hoose magaalada Berbera ay ka fulineysay deegaankaasi Laasada Cawo oo lagu galay qalab cagaf-cagafyo iyo sheewallo ay leedahay dawladda hoose magaalada Berbera ayaa dadka deegaankaasi ku dhaqanina ay kala qayb qaateen ololahaasi nadaafadeed ee laga sameynayay magaalada Laasada Cawo. ugu horeyn hadalla halkaasi ay ka soo jeediyeen gudoomiyaha ku-xigeenka deegaanka Laasada Cawo iyo xubno ku hadlaya afka arrimaha bulshada ee deegaankaasi ayaa ka warramay muhiimadda ololaha nadaafadda uu leeyahay deegaankaasi isla markaasina mahadnaq iyo bogaadin u soo jeediyay dawladda hoose ee magaalada Berbera. aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waan u baahnayn si wanaagsan ayaan noogu shaqayseen si wanaagsan baa hawshin noogu fadhiiseen annaguna waa aragnimo aanu ka helay maanta godadkii oo noo qodeen waa ilaahay mahadi waxaa kaloo intaa raacinaya sidii ay xaalibow sheegtay yay maanta nagaga koobnaanin aniga oo ah gudoomiyaha arrimaha bulshada oo Laasada Cawo magaceyguna yahay Xaali Cabdi Cumar marka hadee waxaan kala salaamayaa bulshada ballaaran ee Laasada Cawo ee sida muga iyo sharafta la uga qayb gashay ololaha nadaafadda degmadooda iyo guryahoodaba waxa weeyaan aad iyo maanta waxa noo qabsoomay hawl aad u ballaaran hawsha ballaaran oo ay hadee lornay fulinteeda leedahay dawladda hoose degmada Berbera maayarka gudoomiyaha arrimaha bulshada Xasan dhamaan iyo hadana tiimka la socda dhamaantood waan salaameynaa aad baa mahadsantiin baan u leenahay waxa noo qabsoomay inaan qodano naloo qodo laba god oo waaweyn oo ka samaysan minbal galbeed iyo minbari ayaa laga qoday labadaas waxa kala dhacday inay to house isu taageen iska rogooyinku guryaha ka samaysan magaalada oo ay xaafad walba xashiishkii ku duugnaa laga soo guray oo horteeda ka soo qaadeen. ugu dambeyntiina agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose magaalada Berbera Xasan Cabdi Cali ayaa isaguna ka hadlay nadaafadda iyo qiimaha ay u leedahay nolosha bulshada isla markaasina dadka deegaankaasi ku ammaanay sida ay hawsha ula qabteen ee ay soo dhaweeyeen. annaga qorshaha iyaga aan halkan ku nimid wuxuu ahaa maadaama golaha deegaanka ee hadda jooga degmada Berbera uu hogaaminayo Maayir Cabdishakuur ay ku guuleysteen ama dawladda hoose degmada Berbera ay ku guuleysatay inay gacan biro ku qabato qashinkii magaalada Berbera oo runtii ay ku filaatay oo oran karno magaalada ugu nadiifsan weeyaan ee Soomaaliland waxay noqotay inaan lagu koobin adeega magaalada Berbera oo kaliya ee dhammaan golaha deegaanka ee jooga hadda goobaha kale ee laga soo doortay iyo tuulooyinka magaalada ee hoos yimaada degmadaba lagu fidiyo adeegaasi meelaha u baahan runtii taasi waxay tusaysaa waxqabadka hadda taagan ee dawladda hoose degmada Berbera ku talaabsatay maadaama magaaladii dibadda uga baxday xaqii ururinta qashinka marka loo eego qorshahan halkan ku nimid wuxuu ahaa koow magaalada in loo sameeyo laba dam site oo waaweyn oo lagu qubo qashinka laba in qashinkii hore ee yaalay ee goobaha tuulnaa laga dabargooyo saddex qashinka magaalada ku dhex jira in guri ay u hor istaagaan iska rogooyinku hor istaagaan laga soo qaado oo godadkan aan qodnay la keeno laguna gubo runtii alxamdulillah ilaahay baa mahad leh bulshadu way nagala qayb qaadatay 100% aad iyo aad dad u xamaasadaysan oo u baahan ama u baahnaa marka horeba in la dhaqaajiyo oo u baahna ayaan la kulannay ومركي ugu horeysay dawladda hoose magaalada Berbera oo nadaafadeed ay ka qabato meelo ka baxsan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera. Cabdi Salaan Xariish Cusmaan TV-ga qaranka Somaliland Berbera.